Asalaamu calaykum. Maanta waxaan rabaa inaan update yar idinka siiyo weli toobigii ayada. Waxaa lasoo sheegayaa amniga ayaa weli caqabadaha ugu waaweyn ee horumarka ayada. Toddobaadadii lasoo dhaafay cilmi baarayaal iyo shirkado tiknoolajiyadeed ayaa soo sheegay nugulaanshaha cusub oo saameyn kara nidaamyada ayada, chatbotska iyo aaladaha casriga ah. Qodobada ugu muhiimsan ay soo saareen oo ay sheegeen waxaa ka mid ah cyber attackska. Weeraryahanadu waxay isku dayayaan inay ayada u adeegsadaan phishing. Phishing-kana haddii aadan garanaynin waxaa loola jeedaa waa nooc ka mid ah waa dambiyada internetka ama loo yaqaano cyber crime-ka oo weeraryahanadu iska dhigaan qof, shirkad ama hay'ado lagu kalsoon yahay si ay dadka u khiyaameeyaan inay bixiyaan xog xasaasi ah sida password-da ama furayaasha sirta ah iyo faahfaahin oo akaunada bangiga, lambarada iyo kaararka deynta ama macluumaad kale oo shakhsiyadeed. Taa waxaa loola jeedaa mararka qaar waxay iska soo dhigi karaan qof aad taqaanay ay isugu soo dhigi karaan si ay xog kaaga xadaan. Iyo wax kale ay soo wariyeen phishing-kaasi iyo malware. Malware-gana waxa waaye malicious software ayaa laga soo gaabshay. Waa barnaamij xaasidnimo ah loola jeedaa barnaamij kasta oo code kasta ama barnaamij kasta oo loo sameeyay inuu waxyeeleeyo, carqaladeeyo, basaaso ama si aan la ogeyn uga helo gelitaan computer-kaaga adigoo wax sheego ogolaansho aadan sheego qofka ogolaansho u haysan inuu computer-da dad iska galo oo codes iyo waxyaabooyin oo virus ah meeshii uga tago. Sida shabakad ama xog wax intay uu ka heli karo meesha kaaga qaato iyo weeraro kale oo internetka ah. Wax kale oo ku jira xogta data privacy-ga. Waxaa jiro walaac ku saabsan iyadana sida xogta dadka loo aruuriyo oo loo keydiyo loona isticmaalo AI manipulation in la sameeyo. Qaar ka mid ah oo weerarada waxay isku dayayaan inay ayada siiyaan macluumaad khaldan si ay u bixiso jawaabo aan sax ahayn. Security patches-ka oo shirkadaha security patches-ka ka mid ah waxyaabo la soo sheegay waa shirkado badan ayaa sii daayay cusboonaysiin amni si ay u xiraan khaladaadka la ogaaday. Sababta muhiimka u tahay ayaa waxay tahay ayada hadda waxay ku jirtaa bangiyada, isbitaalada, ganacsiyada, adeegyada dowladda. Haddii marka nidaamyada ayada la jabsado ama khalkhal lagu sameeyo waxay si weyn u waxyeeleyn kartaa marka malaayiin qof oo kalsoonidii dadkii ayada waxay ku xiran tahay sida amniga loo ilaaliyo. Marka waxaan soo gabagabeynayaa marka ayada sii faafto amniga iyo ilaalinta xogta ayaa noqonaysa mudnaanta koowaad. Horumarka ayada wuxuu u baahan yahay inuu la socdo horumar la mid ah dhinaca amniga si loo hubiyo tiknoolajiyada si ay u noqoto mid ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo. Marka aad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo koobayaa maantaydan xogteeni. Marka waxa weeyaan marka aan soo qaadanayno lectures-kan ama update-kan idin siinayo almuhim waxaan u baahanahay kaliya dadka inaan kala faa'iideysano oo waxyaabooyinka ugu muhiimsan oo ay ka qaataan. Inkastoo update-kii iyo ayada aan wadno haddana meelahan waxaan ka faa'iidi karnaa waxyaabooyinka ama fundamental-ka u ah crimes-ka internetka lagu sameeyo. Hadda meeshaan waxaan ka baranay attention siiye. Meeshaan hadda waxaan ka baranay sheego laba waxyaabood ayaan meeshaan ka baranay oo ugu muhiimsan markii la joogo cyber security-ga markii la joogo. Labada shay aan sheegnay oo muhiimka ah waxa weeyaan phishing waxa waaye nooc ka mid ah dambiyada internetka lagu galo ama cyber crime-ka loo yaqaano oo weeraryahanadu ay isku dayayaan in qof ama shirkad ama hay'ad loo kalsoon yahay ay dadka u khiyaameeyaan inay yihiin. Marka inay bixiyaan sida xog xasaasi ah waxyaabooyin badan oo qofka soo jiidan karo ay u sheegayaan qofba iska dhigayaan si xogta looga xado. Qaybta kale waxaan sheegnay malware waxa loo yaqaano ama malicious software-ka waa asna barnaamij ama code ama sida xaasidnimo loo design gareeyay. Loola jeedaa barnaamij kasta oo awood kasta oo loo sameeyay inuu waxyeeleeyo computer-kaaga, mobile-kaaga ama basaaso waxyaabooyin dhibaatooyin badan u geysto
adigoo yani wax ogolaanshaha ka haysan uu galo computerkaaga ama laptopkaaga waxay tahayba, iyo in weeraro kale oo internetka ah uu kugu sameeyo. Marka maanta intaasaan kusoo koobeynaa yani topiceeni. Aad mahadsantihiin, waxaan filayaa wax badan in laga faa'iiday. Wixii fikirkiinana kule way dhaafi karteen. Assalaamu calaykum.